السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يالكو سو دوادا كلانتي kale oo xiisa xambaarsan waana barnaamijkii ila qosol oo maanta ay marti igu yihiin igula joogan dhalinyaro aad iyo aad idinka qoslin doonta nin walba waxaan weydiinayaa hal su'aal ah su'aashaas oo ah nin walba wixii dunidan ugu qosolka badnaa ee soo maray waxaan idinku dambaysiin doonaa tayda oo ah aan u maleynayo inay noqon doonto tan ugu xiisaha badan waxaan ku horeynayaa ninka la yiraahdo Cabdiraabi Ugaaska oo aan dhahayo bal qisadii kuugu qosolka badnayd iiga sheekay inta aad dunida joogtay ee noolayd kulli qisooyin badan baa jiray laakiin hal mid aan ka codsanayo inuu iiga sheekeeyo ya Cabdiraabi ku soo dhaw barnaamijka barnaamijka horta aad baan ugu dhawahay hadii maanta qiso la sheego waxyaabo badan waxa jirta oo igu qosol badnaayeen laakiin mid ugu qosol badnaa waxay tahay maalin ba aroos baa ka qayb galay arooskii markaan ka qayb galay oo cuntadii aan cunay oo arooskii gabadhii la soo gilbiyay gabadhii marka waxay dhaqanka Soomaaliya ay yaqaan gabadha guriga iyada lagu hormarinaya kadib ninkii baa la dhahay orod gabadhii u tag u diyaar bay tahay gabadhii baa guriga la geliyay gabadhii markii guriga la geliyay hoos baa lagu soo xiray marka gabadhii markii guriga waxa uu hormaray nin waalan markaas oo inuu galay oo basti isku duubay meeskiisa saacade أكيد وعند هذا نكاد وقاسة وفرع ودي جبت زيارة وتك أيوة عادي بس نكى وانا عزة وحاجة جورة فرية بس حتى يشوف ده إسلام منك برغم إسلام مكو برغم يا عروس ما موجي يقولي إن زيارة سي بينك هوس كسوق شيء نكى والله إنه بود توريس بود قبل جق ما يشوف قولي كدير مرة دي بيقول وسكتي ninka arooska socdaa imaaday gabadha wuxuu sameeyay meeshu bustii ugu daday buu ka tagay marka mas ninka wuxuu ay xaaska waa ku diyaar bal shaqadaas ka qabsan laakiin inuu dansadii gabadhii hoosta galaasin ee bahal dhiig buu arkay wuxuu soo booday yaani kuma fikir jiray ku fikir jiray inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markii gabadhu way dhaawacantay meel dhiman markaa way suuxday gabadhu way dhaawacantay dhiig badan waa ka baxay ninkii dhiigkii wuxuu la kulmay guriga mugdi yahay gabadhu waa laga baraala fikir jiray Cabdiraabi sheekadiis aad bay iga qoslisay aan ku xigo qisada Cabdiraabi inta ay u eegata ninka la guridow bal adi maxaa kuugu la yaab badnaa ama kuugu qosol badnaa inta aad dunida ku noolayd inadaro macaan oo aniga la yaab way qosol ma tayda waxa ay ula la yaab badnaa aniga sidaan maxay heeday hore kugu sheegayba aniga waxaan joog jiray dul hadee magaalo inta badan ahayn duurka waxyaalaha magaalada laga isticmaal aad uma aqoon jiray Soomaaliya garan maalinka igula la yaabka maday oo aniga hanteed ilaa hadda maskaxdayda ay qaadan la'dahay waxa way maalinka mas'uul ani aan ka soo baxay ee maamada soo baxay gashay maalinkaas قصة يقول عليه هذا نقرأ دوجو غير قصة بدنا نقرأ لكن ما نكاس ما نقدر أيها يقولوا يا بنت قال مسقوشة محلو سميتنا لو ذكرين ما نقولي قرد حيري مسقوشة وحاي يقول يا بنت أنت عن قلي أو كسر بحي أي صد هذا شيء adigu bal magacaga igu bilow qiisadii kugu qosolka iyo waxa la saabir oo ku salaamaad ba ku salaamay waan ka qaaday kuna soo dhawow waxa ay wiilaya badnaa maalin maalmaha kamid ah magaalada Garissa anagoo ku ciyaarayna kubad marka wiil yar ba kubadii ku dhacday cunugi markuu aan darbaxsheene aniga cunugi mar darbaxsheene cunug kale saaxiibkii darbaxsheeye marka hooyadii in yar biinoo jirto waxay karinaysay baradho meeshii ku karin jirtay marka cunugii la darbaxsheeyay aniga lahjid saama aqoon wiilku wuxuu ahaa marka dadkan Kenyaanka dadkan tinta adag wahaa kadib hooyadii ay timi kaasay tiri cunugii maxaa ku dishay lahjideedii inuu ugu tiri oo luqadii Soomaaliyeed ku tiri marka dhulka waa ku cusba maadan marka Soomaaliga ma aqoon saxa wajaa sindiyo معناه أنا ما أقول مركا هكذا عنقي ما دلها ناديان هذا هو حلال اسمه كرنيسين وحنا أقصى حلا أنا حلي أنا دلها تاجرين هاكو كذا هورت عنقي هذا مركو عده هاي كان معنا نكلو نكيد أنا لا أسكو عدينا أنا أسكو عدينا ما ياده سنديو تاسع يقول قصر بدنا يا فتن سامر تقول aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal sida qiimaha badan ee noo daawatay waa barnaamijkii ila qosol barnaamijkana wuxuu noqon doonaa insha Allah toddobaadle maalin kasta waanu idiin soo gudbin doonaa qisooyin sidaas oo kale idinka qosliya waxaanu idinkaga tegaynaa maanta anagoo
ama wax maamtay waxaanu idinkaga tegaynaa annagoo wax baan maamtay aw qisadaadi teer waa degeysataada aw qisadayda idinku daraa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu intaa kusoo waaniga ku sheekeene taada aaw sheekadayda dhimay midaan daawadayaasha xusuusin sheekadayda niyow waa sheeko maalin dhow la iiga sheekeeyey anaa la iiga sheekeeyey maya taas ay igu qosol badnayd aniga sheekada la iiga sheekeeyey yaa kuwa igu dhacay iiga qosol badnaatay waxay ahayd waxaa la yidhi meel baa xabaal laga qodiyo nin baa la aasi rabay dhintay allah u naxariista intii dhimatay ninkii dhintay markii la aasi rabay xabaashii la qoday roob baa soo daatay roobka marka waxaa la damcay inay waa meel baa laga galay xabaasha agteeda ah mid baa la diray waxaa la yidhi kolka roobka uu qaaday kac soo fiirinaya xabaashii biyihii galeen iyo in kale xabaashi show kan ku sii socda mid baa uga sii horeeyay oo galay oo xaaqay oo eelkii hagaajinaya eelkana hoos baa loo qodaa wuu galay oo ku jiray ninkii kale meeshii uu soo dul istaagay oo yar qoqoyaan iyo waxbay ahayd uu siibtay oo salka ku dhacay kii kore kii gudaha ku jira cunaha dhab siiyay magaas ku yiri mar rabbuka buu ku yiri aniga ma kibadkood jaxku yalla aniga ma